Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan. Ku soo dhowaada cashirkeena cusub ee galabta. Liin iyo sanjabiil la isku daray maxaa ka soo baxayo? Isku daaway liinta iyo sanjabiilka muddo 7 cisho ah. Faa'iidada ay leedahay liinta iyo sanjabiilka ayaa meeshan ku baranaynaa labadooda. Nambarka koowaad, haddii aan soo qaadano, waxay ridaa miisaanka qofka, maadaama qofka cayilan yahay ama fahad ka buuxa jirkiisa. Waxay hoos u dhigaysaa in ay yareyso miisaankiisa ama hilibka saaran jirka. Haddaba liinta iyo sanjabiilka la isku daro faa'iidadaas ayay leedahay. Qodobka labaad, waxay furtaa maskaxda iyo fahanka qofka, kaasoo awood u leh in uu wax walba safgareeyo ama uu qaban karo. Maskaxda markastay ay dhaqdhaqaaqdo waxay filtaraynaysaa ama ay ka saaraysaa wasakhda jirka, taasoo marnaba aan ku qabsoonaynin in aad markastayto xanuun aadan dareemin. Micnaheeduna ay tahay in aad mar walbeeta aadan waxba ka fahmi doonin waxyaabaha caadiga ee maskaxda soo galayo, taasoo tirtirid u ah liinta iyo sanjabiilka la isku daray. Haddii uu madaxa ku xanuunayo, waxaad ku bogsanaysaa liinta iyo sanjabiilka haddii la isku daro. Qodobka saddexaad, haddii uu qofka labalaboonayo ama dhibsanayo cuntada caadiga ah, liinta iyo sanjabiilka la isku daray waxay socodsiinayaan qofka caadiga labalabada u qabtay jir ahaantiisa ama habdhiska dheefshiidka, taasoo mar walbeeto qofka sida caadiga ku soo noqon doono. Marka saddexaadna waxay samaynaysaa in ay qofka ka soo saaro qaybta saxarada, ama awood waxay socodsiinaysaa in ay wasakhda ka soo saarto jirkiisa. Qodobka afaraad, waxay kordhiyaan difaaca jirka oo qofka leeyahay, taasoo mar walbeeto iskaga difaacayo qofka caafimaadkiisa liita. Haddaba waxaan ogaanaynaa liinta iyo sanjabiilka faa'iidada ay jirka u leedahay. Mar walbeeto waxaad ogaataa in difaaca jirka qofka oo kor u qaadayo hadduu u isticmaalo liinta iyo sanjabiilka, taasoo micnaheeduna ay tahay in haddii uu isticmaalo liinta iyo sanjabiilka waxaa yaraanayo difaacii wixii soo weerarayo wasakhyadii ama jeermiskii ama fayraska. Qodobka shanaad, faa'iidada uu leeyahay. Wuxuu faa'iido u leeyahay cudurka sokorta, wuxuuna kontaroolaa hoos u dhiigga, waxayna mar walbeeto socodsiiyaan habdhiska dhiig wareegga. Qofka sokorta qabo mar walbeeto bakteeriyada dhiiggiisa ku jirto way dishaa liinta iyo sanjabiilka. Haddii aad isku darto liin iyo sanjabiil, mar walbeeto waxaa tahay qof caafimaad badan, waxaanad u nugushahay in aad mar walbeeto iska difaaci karto jeermisyada iyo fayraska ku soo weerarayo. Lambarka lixaad, ha isticmaalin xanuun baabi'iyaal, sababtoo ah haddaad isticmaasho xanuun baabi'iyaal waxaa laga yaabaa daawada kiimikaadka in aad ku feelgarowdo. Laakiin haddii aad xanuunsato ama jirka ku xanuuno, waxaad isticmaali kartaa oo ku bannaan si herbal ayna iskaga daawey kartid liinta iyo sanjabiilka. Isticmaal liin iyo sanjabiil, iskana yaray daawada kiimikaadka ah. Waa mahadsantihiin.